soo dhawaada barnaamijka shabakada caalamiga ah ee Gari Global Network oo ku saabsan sooyaal taariikheedka ee marxaladihii la soo maray iyo xaalkii hadda dowladda deegaanka Soomaalida uu ku sugan yahay. Sidii la wada ogsoon yahay halgankii gumaysi diidka iyo aayah ka tashi doonka oo Soomaali state ka jiri jiray muddo dheer isagoo soo mari jiray marxalado kala duwan oon halkan ku soo koobi karin. Wuxuu ka soo unkamay waqtigiis hore waa 3 gobol oo kala ahaa Harar, Baale iyo Sidaamo ee 2 jabhadood oo isku ujeedo ah ay ka howlgeli jireen iyagoo la kala oran jiray Soomaali Galbeed iyo Soomaali Abo. Jabhaddii Soomaali Galbeed waxay ka dagaalami jireen gobolka Harar ee jabhaddii Soomaali Abona waxay ka dagaalami jireen gobolka Baale iyo Sidaamo waqtigaas. Sidaa darteed markii la helay aaya ka tashi daaqili ah waxaa la samaystay awood qaybsi maamuleed ee dadka iyo deegaanka ku salaysan oo la isku raacay iyadoo la eegaya halganka dheer iyo halaagii loo soo maray cid walba waxay ka soo mutaysteen ayaa sida tan loo kala qaybsaday. 1. Madaxweynaha waxaa la siiyey Absame Ogaadeen. 2. Ku-xigeenka waa Ciise. 3. Afhayeenka baarlamaanka waa Garaha ee wixii kalena waa la isla qaybsaday guud ahaan si cadaalad ah oo lagu wada kalsoon yahay. Ha yeeshee waqtigan hadda Mustafa Cagjar madaxweyne noqday Garaha iyo ummadda kale oo deegaanka degan qaar ka mid ah waa la dulmay. Gaar ahaan Garaha booskood waa laga saaray ee Mustafa baa ku darsaday ee guddiga fulinta iyo golihii dhexe iyo golihii wasiirada oo ay ku jiri jireena waa laga wada saaray. Inkastoo sidaas loo galay Garuhu isma ay wareerin ee samir unbay ku sugnaadeen ee waxay sugayaan wareega waqtiga iyo inuu Mustafa iskarto ee uu qaladkiisa dib u saxo. Sidaas oo kalena waxaad mooda inaan deegaankaba laga warqabin in laga danaysto mooye ama dad kale daba dhilif loo noqdo mooye aan waxba halkan lagu haynin. Waxaa kaloo deegaanka ka jira wax la yiraahdo qiimeyn oo joogto ah oon dhammaananin ee raayul caamka lagu qaldaya iyadoo la iska dhigaya in lala dagaalamo musuqmaansuq laakiinse lagu musuqmaansuqayo dadka iyo deegaankaba si doqon ma garato ah. Maxaa yeelay lacag baa lagu aruursada ee qofkii lacagta laga helo ayaa la dilacsiya kan kalena waa la eriya ee midka lacagta baxiya ayaa booskiis la soo geliya ee ummadana waxaa lagu qaldaya in qiimeyntaas wax loogu qabto ama musuqmaansuq lala dagaalamo oo maamulkoodna loo hagaajiyo laakiinse waaqiiqii musuqmaansuqa ee la isku qarinaya weeye ogaadaha ku kadsoomina. Waxaad kaloo ogaataan in hawl maalmeedkii maamulkii deegaanka guud ahaan ummadda u hayo uu kaas yahay ogaada. Waad mahadsantihiin.